hadal uu dhawaan ka jeediyay deegaanka Balambala wasiirka caafimaadka dalka mudane Aadan Barre Ducaale ayaa dhaliyay dood weyn iyo dhaliilo kala duwan qaar ka mid ah shacabka iyo falanqeeyaasha siyaasadeed ee gobolka Waqooyi Bari ayaa ku tilmaamay khudbadiisa mid dhaawici karta midnimada bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Waqooyi Bari Kenya geelayaa meeshan deganay awkii geelay raacay meelaan ku arkay 228 neef meeshan oo hal geelo u qurxan banaanay u dhaxeeyo iyo meeshan Balambala Aadan Barre askar ninka marmar inuu faano Soomaaliya galo ninka siyaasiga North Eastern oo geel la soo sheega halka qaar kale ay sheegeen in hadalladaasi uu muujinayo in siyaasi uu sheegto awood iyo ismuujin dhaqaale oo aan waafaqsaneyn xaaladda siyaasadeed ee dalka Ducaale ayaa lagu dhaliilay in khudbadiisu ku adkeeyay ka hadalka hantidiisa gaarka ah awoodda uu leeyahay iyo saameynta uu ku leeyahay ismaamulada kala duwan ee dalka falanqeeyaasha ayaa ku baaqay in siyaasiyiinta ay miisaamaan hadallada ay jeediyaan iyo saameynta iyo falcelinta ka dhalan karta maadaama hadallada mas'uul sare uu si fudud u kicin karo xiisado bulsho faraha badan ee isamaanayso waxayba mar haysaaba hadii inaan dhahdo maaragtay ana rabbukumul a'la sidii maaragtay qaaruun iyo muxuu ahaa nabi Muuse iyo Fircoon ay isku ahaayeen oo kaleeto kaama yeelayno laakiin waxaan ogsoonahay gacanna inaad diinta ugu dadaasho gacanna waxay badan oo xun oo gaaris ka dhaco inaad adi promote garayso subaxina sheekhayaashina la joogi galabtina maaragtay magaalada qaadka iyo daroogada laga wado cuno dhan lacagtaada lagu iibiyo marka niyo isku tur qaar ka mid ah dadka ayaana si cad ugu baaqay in wasiir Aadan Barre Ducaale inuu raaligelin ka bixiyo hadalladiisa si loo dejiyo xaaladda iyo in bulshada loo muujiyo hoggaan daacada meeshan helikobteraha way isku dhici doonaan 2027 helikobteraha way isku dhici doonaan Aadan Barre ma soo kireysanayo ana askale aniga helikobteraha leeyahay قاران اللي مقرانيه أنا قاران اللي مقر أنا قاران قري دكتور والإسجير دونا سيد بلنت قادة أنا كان وحن حقيقين دونا إن شاء الله ودولة كينيا نوشيجينا إن أنا مثلاً وزير أنا كنومتيهيد لينك عضو تهانا أنا كرمنا إن اللي حساب تنو وأنا اللي حساب تمينا دولة ده شيء يسأل أنا كشهر هولد أمان كه هذا الشيء أسكال وده هذين دونا توا 10% أنا كان 90% باميس كلي إبراهيم نور عبد الرحمن ورباين تداوى كاونتيغا مانديرا